asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kusoo dhowaada halkaad naga dhegaysanaysaan waa idaacadda SSC Radio codka shacabka. maanta oo ah maalin sabtiya taariikhdu ay tahay bishii Oktoobar 19 waxa aad ku soo dhowaataan war wixii dalka iyo dibaddaba naga soo gaaray. bal inta aynan u gudbin wararka waddanka Soomaaliya bal marka ugu horeysa wararka dibadda oo aanu idin hayno. maxkamadda caalamiga ah ayaa waxa ay sheegtay in ay u cudur daari doonto madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta. jabhadda M23 ayaa waxaa la sheegayaa in ay wada hadal la geli doonto dowladda Kinshasa ee waddanka Congo. xogayaha qaramada midoobay ayaa waxa uu sheegay in uu ka helay warqad ay dowladda Sacuudi Carabiya ku diiday kursigii ay ku fariisan lahayd golaha amniga iyagoo ku eedeysay laba wajiilannimo. qoys reer Ciraaq ah oo ka kooban 6 qof oo ku dhintay gobolka Ohio. qoyskaas oo iyagu ku sugnaa waddanka Mareykanka muddo 3 sano ah. maxkamadda caalamiga ah ayaa maalintii Jimcada ahayd waxay u cudur daartay madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta in uu yimaado maxkamad laga sugayay oo maxkamadda caalamiga ah. madaxweynaha waddanka Kenya ayaa waxaa lagu eedeynayay rabshado ka dhacay sanadkii 2007 waddanka Kenya. qoraal ay soo saartay maxkamadda ayaa waxaa lagu sheegay in loo cudur daaray in madaxweynaha uu maxkamadda yimaado. maxkamaddaas oo lagu wado inay bilaabato bisha November 12 sanadkan 2013 balse waxaa la sheegayaa in ay dacwadda maxkamadda ay furmi doonto isagoona madaxweynaha uusan joogin. maxkamadda ayaa waxay cudurdaarkeedan ku salaysay mas'uuliyadda madaxweynenimada ee waddanka ka saaran iyo xafiiska iyo mas'uuliyadda uu u hayo waddanka Kenya. Uhuru Kenyatta iyo ninka kale ee isagu ka tirsan dowladdiisa la yiraahdo William Ruto ayaa waxay maxkamaddu ku eedeynaysaa inay dembi ka qayb qaateen dembigaas oo uu ku dhinteen ilaa iyo 100 qof laguna barakiciyay ilaa iyo dad gaaraya 10 qof. rabshadahaas oo markii hore ku bilaabmay arrimo siyaasadeed balse markii dambe isu bedelay dagaal qabiileed ayaa waxaa la sheegayaa inay ahayd rabshadii ugu xumayd oo ka dhacda waddanka Kenya ilaa iyo sanadkii 1963. hase ahaatee ninka kale ee maxkamadda la saaran ee William Ruto ayaa waxaa la sheegayaa in isagu maxkamadda laga rabo inuu yimaado oo maxkamaddu ay diiday codsigii uu soo gudbistay. jabhadda M23 oo ayaa waxa ay sheegtay in ay wada hadallo la geli doonto dowladda Congo. warqad ay soo saartay jabhadda ayaa waxa ay ku sheegeen in horumar laga gaaray wada hadalla ayna rajo fiican ka qabaan inay wada hadal la yeeshaan dowladda waddanka Congo. jabhadahan waddanka Congo ayaa iyagu hadda waxa laga yaabaa in iyo dowladdu inay iskugu tagaan waddanka Uganda oo ay ku wada hadlaan. jabhadaas oo iyagu isku magacaabo M23 ayaa waxay sheegeen in Uganda ay dhexdhexaadinayso waxa ayna sheegeen in ay ka soo qaybgeli doonaan wadahadalladan xubno ka tirsan bulshada caalamka. si kastaba ha noqotee ninka loo yaqaano Lambert Monde oo isagu ka ah wasiir dowladda Congo afhayeena u ah dowladda ayaa waxa uu sheegay in wadahadalladan lagu qiimeyn doono wixii ka soo baxa iyo wixii la isla afgarto oo la saxiixo. wadahadalkan ayaa waxa sidaas oo kala ka soo qaybgeli doono ergey ka
socda waddanka Mareykanka oo loo yaqaano Russ Feingold iyo wakiilka United Nationka u qaabilsan ee Mary Robinson iyo sidaasoo kale wakiilka u fadhiya waddanka Congo. waxaa sidaasoo kale ka soo qaybgeli doona wakiilo ka socda wadamada Yurub iyo wadamada Afrika. jabhadan ayaa waxaa la sheegayaa magacan M23 inay la baxday sanadkii 2009 bishii March 22keedii halkaas oo ay sheegeen in dawladdu ay la gashay heshiis. jabhadaha markaana la rabay in ay ku biiraan dawladda ciidamada dawladda balse dawladdu ay gabtay inay mushahar siiso ama ay taageerada siiso ciidanku ay u baahnaayeen. waxa ayna kaliftay ayay yiraahdeen inay dib u qaataan qorigooda oo ay ula dagaalamaan dawladda. kooxdan ayaa waxa ay haystaan dhul gaaraya ilaa iyo 700 oo kilomitir oo dhinaca kale u dhigma 270 mayl oo isku wareega oo ah waddanka Congo dhinaciisa bariga ah oo leh macdan aad u badan. waxa ayna xuduud dhinacaas kala leeyihiin wadamada Rwanda iyo Uganda. UN-ta ayaa waxay ku eedeysaa wadamada Uganda iyo Rwanda inay taageersan yihiin jabhadaha balse wadamadaas ayaa beeneeya. xogayaha qaramada midoobay Mr. Ban Ki-moon ayaa sheegay in uu warqad ka helay Saudi Arabia oo ay sheegayaan in ay diideen kursigii la siiyay ee golaha ammaanka. kursigan oo ay 2 sano ay hayn lahaayeen. wasiir ka mid ah dawladda Sacuudiga ayaa waxa uu sheegay in golaha ammaanka ay iska celiyeen kursigii la siin lahaa waddankaas sabab la xiriirta arrimaha waddanka Syria iyo waxay ku tilmaameen laba wajiilanimada. wasiirkan ayaa sheegay in marka hore loo baahan yahay UN-ta naftigeeda in ay iyadu isbedel samayso. waxa uu sheegay golaha amniga in uu ku guul daraystay inuu wax ka qabto arrimaha ka socda waddanka Syria iyo wadamada kale oo dhibaatada ka taagan tahay. arrintan ayaa waxay tahay tii ugu horeysay oo kursi qof wadan laga siiyo kuraasta loo yaqaano qaramada midoobay ee aan rasmiga ahayn diida ayaa waxaa la sheegayaa inay tahay arrintii ugu horeysay. wadamada kursiga rasmiga ku leh ayaa waxa ay kala yihiin waddanka Mareykanka, Ingiriiska, Faransiiska, Shiinaha iyo waddanka Ruushka. waddankan Mareykanka gobolka Ohio ayaa waxaa la sheegayaa in ay 6 qof oo isku qoysa ay ku dhinteen shil gaari. ninka isagu caruurta dhalay oo la yiraahdo Eid Badi Shahad oo isagu nin Ciraaqi ah ayaa waxaa la sheegayaa inuu gaariga ay la saaray naayeen haweenaydiisa iyo 4 gabdhood oo uu dhalay. waxaana la sheegayaa in uu isaga oo ka yimid booqasho oo xilligii Iida u aaday meel kale inay soo galeen magaalada ay markaa degan yihiin halkaas oo askari bilayska Mareykanka ka mid ah oo isaguna ku degdegayay meel ay ka dhacday dhibaato ku degdegayay in uu ku dhaco baabuurkii. waxaana halkaa ku dhintay 6 qof iyo askarigii. dadkan ayaa qaxootiga ah ayaa waxaa la sheegayaa inay ka soo carareen waddanka Ciraaq. waxa ayna muddo qaxooti ku ahaayeen Syria kadibna waxa ay yimaadeen waddanka Mareykanka oo ay markaa iyagu islahaayeen nolol ku samaysta. waxaana ka haray qoyskan sida la sheegayo 4 wiil oo iyagu markaa guriga ku sugnaa oo aanan raacin. halka aad warkaa ka dhageysanaysaan waa idaacadayada SSC Radio codka shacabka. bal markan iyo wararkii waddanka Soomaaliya aan idin kala dhexbaxo. bismillaahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka raadiyaha SSC codka shacabka kuwooda ugu doorka roon. qarax sababay dhimasho iyo dhaawac oo barqanimadii maanta ka dhacay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. gudoomiyaha cusub ee bangiga dhexe ee Soomaaliya oo faahfaahin ka bixiyay qaabka ay wada shaqayn doonaan xawaaladaha Soomaaliya ee bangiga dhexe. gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan oo kulamo gooni ah la qaadanayo waxgaradka ku nool magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan.
maamulka degmada Dharkeenley ee dowladda federaalka Soomaaliya oo faahfaahin ka bixiyay howlgallo dad badan lagu soo qabqabtay oo ay ka fuliyeen ciidamada dowladda degmadaasi Dharkeenley. israsaaseen sababtay dhimasho iyo dhaawac oo ku dhaxmartay ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka Soomaaliya deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose. maamulka gobolka Shabeellada Dhexe ee dowladda federaalka Soomaaliya oo baaq u diray beelo walaalo ah oo ku dagaalamaya qaybo ka mid ah gobolka Shabeellada Dhexe. intaasina waxay ahaayeen dhageystayaal saaxiibayaal qodobada warka raadiyaha SSC kuwooda ugu doorka roon iminkii haatan warkii oo faahfaahsan. qarax sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa barqinimadii maanta waxa uu ka dhacay maqaayada ku taala magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. wararkayna ka helayna magaalada Beledweyne ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi ku gooriyeedeen ilaa iyo 13 ruux in ka badan halkaasi dhaawac uu ka soo gaaray. wararka ayaa waxa intaasi ku dirayaan in qaraxani loo adeegsaday qof naftii hura isla markaasina uu dhaxgalay maqaayada ku taala magaalada Beledweyne xilligaasi oo la sheegayo in dadka si aad u balaaran ay u dhex joogeen maqaayadaasi. wararka ayaa waxa intaasi ku dirayaan dadka geeriyooday in ay ku jiraan haween caruur iyo waliba dad dhalinyaro ah iyadoo sidoo kale dadka dhaawacana ay ku jiraan dad caynkaasi oo kale ah. ma jiraan ilaahi iminka wax si rasmi ah oo intaasi dhaafsan oo ka soo baxay hase yeeshee waxa wararka intaasi ay ku dirayaan in ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ay bilaabeen howlgallo ku aadan sidii loo soo qabqaban lahaa raggii ka dambeeyay qaraxaasi waliba cid kasta oo lagu tuhunsan yahay inay xiriir la leedahay qaraxaasi. inta badan qaraxyada ayaa waxa sheegtay xarakada al-shabaab inkastoo ilaa iminka howlgallada aan la cadeynin cidda lagu soo qabtay hase yeeshee wararka ayaa waxa ay sheegayaan in dhalinyarada da'dooda u dhaxaysa 25 ilaa 18 sano laga soo qabanaya qaybo ka mid ah magaaladaasi Beledweyne. gudoomiyaha cusub ee bangiga dhexe ee Soomaaliya ayaa waxa ay ka hadashay arrimo badan oo la xiriira bangiga dhexe iyo waliba qaabka uu shaqayn karo. Masayus Sabral oo warbaahinta la hadashay ayaa waxa ay sheegtay in ay wadaan arrimo badan oo la xiriira sidii bangiga dhexe ee Soomaaliya uu shaqayn lahaa isla markaasina waxyaabo badan oo la xiriira xawaaladaha dalka Soomaaliya ka howlgala iyo waliba dibadiisa ay wada shaqayn lahaayeen bangiga dhexe ee Soomaaliya. mar ay soo hadal qaaday in ay xawaaladahaasi yihiin kuwa intooda badan wax u qabtay bulshooyinka Soomaaliyeed haddana waxay tilmaamtay in ay lagama maarmaan ay tahay in ay wada shaqeeyaan xawaaladaha Soomaalida iyo waliba bangiga dhexe ee Soomaaliya. dhibaato hadda way jirtaa laakiin se aakhirka guulaga gaari doono haddii aanu isla kaashano bangiga dhexe iyo xawaaladuhu inaan wada shaqeyno oo waxyaabaha ay caalamku doonayaan inaan dhinaceena ka qabanno aynu ka qabanno ay ka mid tahay in xawaaladaha la register gareeyo in waxay qabanayaan la ogaado in maaragtay sida caalamkuba dee baananka iyo hay-adaha kale ee xagga dhaqaalahaba aad baa loo maamulaa waxaana maamula bangiga dhexe. waxay filayaan saas oo kale inuu wadankeenuna sameeyo taasina waan ku rajo qabaa inaanu si fiican u sameyn doono oo iska kaashan doono anagii xawaaladaha iyo baanankuba baanan la'aan iyo bank ma soo kacaya dhaqaalaheenu marka taasina waa midan aad ugu tala jira inaan wax ka qabano. gudoomiyaha bangiga dhexe ayaa sidoo kale waxa ay soo hadal qaaday hay'adda lacagta adduunka IMF iyo waliba bangiga adduunka iyo qaabka uu wada shaqayn lahaayeen bangiga dhexe ee Soomaaliya. inaan la kulanay IMF-ta iyo World Bank-ka labadaba shirar gaar aan la yeelanay oo waliba aanu xagga aan kala hadlayay Central Bank kala hadlayay waana aad iyo aad bay ugu ballan qaadeen waxyaabo far badan inay la qabtaan oo ay nala dhisaan banka ay baan caalami ka dhigaan oo maaragtay heer sare soo gaarsiiyaan ay ugu ballan qaadeen. taas ka sokow waa in iyadana baanankii la dhisaa. ugu dambeyntiina waxa ay sheegtay in hay-adaha samafalka ee lacagaha bixiya Soomaaliya iyo waliba bangiga adduunka iyo bangiga dhexe ee Soomaaliya ay wada shaqeeyna dhab ay dhaxmari doonto kadib kulan ay ku yeesheen magaalada Brussels. waxa ayna tilmaamtay in dabagal lagu sameyn doono lacagaha Soomaaliya lagu deeqay iyo waliba sida ay u adeegsanayaan. shirkii lagu qabtay Brussels wasiirku sheegay aad iyo aad baa lagu soo guuleystay laakiin waxa inakana la inaga rabaa waxyaabo inaka dee la rabaa inaan sameeyno oo xagga saynu maamuli lahayn lacagta waxaan ka maqlay hay-adaha oo dhan in ay rabaan lacagtu markay soo gasho
iyo markay ku dhamaato iyo halkay ku dhamaatay inay arkaan halkay ka soo gashay halkay ku dhamaatay inay si fiican u arkaan bay rabaan marka taasina waa wax dee noo taalan iyo wasiirka inaanu ka shaqayno si kastaba ha ahaatee bangiga dhexe ayaa ilaa iminka si rasmi aanan u howlgelin walow madaxda sare ee dowladda federaalk Soomaaliya iyo weliba hay-adaha iyo weliba kuwa mashaariicda ka fuliya dalka Soomaaliya ay ku fushadaan lacagahooda bangiyada gaarka loo leeyahay ee ka howlgala dalka Soomaaliya. Gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan ayaa kulamo gooni ah waxa uu la qaadanayaa odayaasha iyo waxgaradka ka soo jeeda gobolkaasi Hiiraan. tan iyo markii wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka xukuumadda federaalk Soomaaliya ay shaacisay in ay bilaaban doonto musharaxiinta u taagan qabashada maamulka gobolka Hiiraan iyo weliba isa soo cadeynta sharaxidda qofkii qaban lahaa maamulkaasi ayaa waxa ku sii qulqulaya magaalada Beledweyne mas'uuliyiin kala duwan iyo weliba siyaasiyiin iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalk Soomaaliya kuwaasi oo hanqal taagayo cid kasta sidii ay meeshaasi ugu soo muuqan lahayd. Cabdifataax Xuseen Afrax gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan oo gaaray maalinimadii shalay magaaladaasi Beledweyne ayaa kulamo gooni ah waxa uu la qaadanayaa odayaasha waxgaradka ee aqoon-yahanada ka soo jeeda gobolkaasi Hiiraan. waxa uu sheegay inuu u tagay magaalada Beledweyne sidii dadka ku nool gobolkaasi Hiiraan ay u wada dhaxmari lahayd nabad iyo weliba xasilooni iyo nolol aad u wanaagsan. waxa uu tilmaamay in uu rajaynayo in uu noqdo musharax u taagan xilka maamulka gobolka Hiiraan inkastoo uu sheegay in la iminka in uusan go'aan rasmi ah ka gaarin kadibna uu go'aan ka gaari doono mar haddii kulamo gooni ah oo la qaadanayo odayaasha waxgaradka iyo siyaasiyiinta ku sugan magaaladaasi Beledweyne. Cabdifataax Xasan Afrax ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in rajo weyn uu ka qabo in maamul loo dhan yahay oo ka soo baxo gobolkaasi Hiiraan. Maamulka degmada Dharkeenle ee dowladda federaalk Soomaaliya ayaa waxa uu ka hadlay arrimo badan oo la xiriira xaaladda amniga ee degmadaasi iyadoo howlgalla dhinaca kale laga fuliyay degmada Dharkeenle ee gobolka Banaadir. Macna Cabdulle Cali Hilowle oo maanta la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay qaabka amniga degmadaasi. habeen maalin waa shaqeynaa inkastoo ay dhibaatada noogu badan ay tahay ciidamadii booliska oo saldhigga ku qornay in howlo kale beledka magaalada looga diro haddii ciidamada saldhigga ku qoran halkan ka howlgalaan shaqadooda ay degmada noqoto wax badanaaba intaan ka si fiican la qabalahay baahidii degmadu way dabooleed haddii ciidamada degmada amba saldhigga loogu sino waa dabool meelheeday madaxdana waa kala hadalnay magaaladii howlgal kale ay ka galeen beledka loo qaadaa degmaduna waa baaxad weyn tahay waxay u baahan tahay ciidan badan oo yani ku filan oo habeen maalinba ku wali u rontay. Gudoomiyaha degmada Dharkeenle oo hadalkiisa sii wata ayaa dhinaca kale waxa uu soo hadal qaaday howlgalla ay ka fuliyeen ciidamada booliska ee degmadaasi Dharkeenle kaasoo uu tilmaamay in lagu soo qabqabtay dhalinyaro falal amni darro ah ka waday degmadaasi iyo weliba kuwa ku isticmaalayay waxyaabaha maanka dooriya. wax badan lagu soo qabtay dad badan oo fal amni lagu eedeeyay la soo qabtay anaka waxaan soo qabanno hadii yani dambiga ku xadaad isku gudbinaa maxkamadda aan gudbinaa qaar badan oo fal darro soo qabto maxkamadda loo gudbiyay ayaa jira kuwa yani maaragtay laga shakiyo yani shaabnimo looga shakiyo ay kana la soo qabtay marka iyada ku shaqalan ku wareejinaa kuwa muqaadaraad yani maaragtay xashiish iyo la soo qabtay ayaa jira wada yani maaragtay guriyo lagu soo qabtay sidoo kale inta oo muqaadaraadkaas xashiishka lagu soo qabtay ayakana waxayna wax badan oo marka waxawaaye wixii markaas dadku midka shabaabka amba midka yani bila macna yani magaalada qorida kala wareegaya amba sameynaya wax fawda saas oo kale into ala soo qabtaa cidii dambe ku jirta sharciga horgeeyna. si kastaba ahaatee degmada Dharkeenle ayaa waxa ay ka mid tahay degmooyinka gobolka Banaadir inkastoo lagu tilmaamo degmada kaliya ee 16 degmo midooda ugu amniga fiican. iskoorimaad sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa waxa ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalk Soomaaliya ee ku dhaxmartay deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose. wararka ayna ka helayna deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa waxa ay tilmaamayaan in ciidamo ku wada labisan dareeska ciidanka rag ku wada labisan dareeska ciidanka dowladda federaalk Soomaaliya oo jagboynta u yaalay deegaanka Janaale hisaakis rasaaseen halkaasi ku dhaxmartay. ilaa iyo 2 askari ayaa halkaasi ku geeriyootay 2 kalena dhaawac aad u xoogan ayaa ka soo gaaray kadib markii ay isku maandhaafeen isbaaro lacag badan looga qaado baabuurta BLK ee shacabka isticmaalaan. waxaana ilaa iminka aanan ka soo yeerin hadallo ku aadan saraakiisha ciidamada dowladda federaalk Soomaaliya ee rasaaseenta dhaxmartay ciidamadan ka wada tirsan dowladda federaalk Soomaaliya.
maamulka degmada Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in dhibaatooyin aad u xoogan ay ku qabaan raggan ku libisan dareeska ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya isbaarada u dhiganaya baabuurta BLka waxa uu tilmaamay in horey u gudbiyeen madaxda sare ee dawladda federaalka Soomaaliya hase yeeshee ilaa iminka aysan jirin cid wax ka qabanayso waxa uu ka codsaday madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo mudanayaasha baarlamaanka federaalka in arintaasi ay ka wada hadlaan iyo waliba sidii wax badan loogu qaban lahaa isbaarooyinka ku soo badanayo deegaanada gobolka Shabeellada Hoose maamulka gobolka Shabeellada Dhexe ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu baaq u diray beelo walaalo ah oo ku dagaalamayo deegaano hoostaga gobolka Shabeellada Dhexe gobolka Shabeellada Dhexe ayaa waxa hore ugu dagaalamay laba beelood oo walaalo ah oo kuwaas oo isku haysto dhul daaqameed iyo waliba dhul beereed waxaana kala dhaxgalay maamulka gobolka Shabeellada Dhexe iyadoo go'aan ay ka soo saareen beelahaasi ku dagaalamaya halkaasi hase yeeshee colaadan ayaa dib u soo cusboonaatay kadib markii maalnimadii shalay ay gacan iskula tageen labadaasi beelood iyadoo la sheegayo in halkaasi ku geeriyooday mid ka mid ah beelihii halkaasi ku dagaalamay waxaana wararka intaasi ku dareen in laga cabsi qabo in mar kale dagaal beelo walaalo ah halkaasi uu ka dilaaco maamulka gobolka Shabeellada Dhexe gudoomiye ku xigeenka gobolka Shabeellada Dhexe ee dawladda federaalka Soomaaliya Mr. Caqiil oo la hadlay maanta warbaahinta ayaa waxa uu baaq u jeediyay in dhammaan beelahaasi walaalaha ay joojiyaan dagaalka halkaas ay ka wadaan waxa uu iskugu yeeray dhammaan odayaasha labada dhinac waxa uu ka codsaday in ay kala dhaxgalaan labadaasi beelood oo dhawaan ay joojiyeen dagaalkooda maamulka gobolka Shabeellada Dhexe dhageystayaal inta waxa nagaga eg war wixii maanta dalka iyo dibaddaba naga soo gaaray waxaana maanta warka idin soo gudbinayay aniga oo ah Axmed Laari iyo saaxiibkay isagu marka warka idin ka soo diyaarinayay wadanka Soomaaliya inta aan ku kulmi doono barnaamijkayga Barito waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo aniga hoy aniga hasku kaynab nabi darurana hayga sugin inaan nugle haw malay waryahe haw malay oynika haw malay aniga hoy aniga hasku kaynab nabi darurana hayga sugin inaan nugle haw malay waryahe haw malay oynika haw malay nadamka kurkayo hadda nolosha baaqoon aniga nahay waran niyadana iga jabin niyada qalbiga waa ka naxee nadamka kurkayo hadda nolosha baaqoon aniga nahay waran niyadana iga jabin niyada qalbiga waa ka naxee niyadana ha iga jabin
كنولي وحيد دمركن عزايز يجيرو من ويانا يسورا نباتيني وبحدها نغشى الله كنولي وحيد دمركن عزايز يجيرو من ويانا يسورا نباتيني وبحدها نغشى الله عنيقو هاي عنيقو نلشاس مرنبو نفتي بعديقو ببتين هنوغيني وانكم عين وياهي وانكم عين وينيكو ولكم عين عنيقو هاي عنيقو نلشاس مرنبو نفتي بعديقو ببتين هنوغيني وانكم عين وياهي وانكم عين وينيكو ولكم عين ندم كبوكيو حتى نرشب أقون أنا قلنا هاي ورن نيتنا هاي قتشبين نيتنا هاي قتشبين ندم كبوكيو حتى نرشب أقون أنا قلنا هاي ورن نيتنا هاي قتشبين نيتنا هاي قتشبين نيتنا قلبي وكان نيتنا هاي قتشبين نيتنا نختي بعدي مدرتين نيتنا هاي قتشبين نيتنا قلبي وكان نيتنا